xukuumadda Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxay jawaab ka bixisay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole kaasoo sheegay inaanay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadli karin ilaa maamul goboleedka Puntland uu soo dhaxgalo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar oo la hadlay Hon Cable TV waxa uu sheegay in hadalkaasi muujinayo gardaracad waxa uu tilmaamay in beesha caalamku si toos ah u aqoonsatay in Somaliland iyo Soomaaliya ay kala yihiin laba dal oo wada hadli kara waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in Mustafa Faroole uu raaco tubta nabadda dalka Soomaaliya oo iska iloobo riyada uu ku riyoonayo waxaanu yiri marka ugu horeysa horta waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaa baaqi ka soo baxay shirkii London oo caalamka ugu baaqay in taageero laga siiyo sidii ay Somaliland iyo Soomaaliya ay uga wada hadli lahaayeen mustaqbalkooda arrintaasi waa arrin aanu aad u soo dhaweynayno waxaanu jecelnahay in waqtiga ay munaasib ku noqoto in ay Somaliland iyo Soomaaliya ay ka wada hadlaan sidii loo soo dhameyn lahaa midowgii berigii hore ay wada galeen oo beri hore Somaliland dib ula soo noqotay xorriyadeedii laakiin arrimaha harsan in la dhameeyo oo aqoonsiga iyo wada shaqaynta iyo iskaashiga ay ugu horeeyaan dhinaca kale hadalkan imika soo baxay Somaliland horta waxay markay ku habboonato la hadlaysaa Soomaaliya waa dawlad Soomaaliyeed oo Soomaaliya mas'uul ka wada ah oo rabitaanka shacabkeeda ku fadhida waxaan aaminsanahay in gobolka Puntland uu Soomaaliya ka mid yahay marka ciidan horta la hadlayna waa dawladda dhexe ee Soomaaliya ama taym ka jirta ama sida go'aanka ku qoran ta mustaqbalka la filayo bisha August wixii ka dambeeya in la sameeyo marka wada hadalkan dhex maraya horta waa qoradaas uu dhex maraya waxaanu ka wada hadlaynaa waxa weeye masaalixda danaha shacabka Somaliland iyo Soomaaliya iyo sidii loo dhameyn lahaa midowgii berigii hore ee dhex maray caalamkuna arinta nagu garab galo oo nala fadhiyo oo hawsha nagala shaqeeyo ayaa lagu heshiiyay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa arinta degmooyin ka mid ah gobolada bariga Somaliland oo ay arrimo xal u baahan ka taagan yihiin arrimahaasi waa arrimo khaas u ah shacabka iyo dawladda Somaliland maaha arrin gobol kale ama wadan kale ama cid kale u taalamaha waa arrin khaas u ah Somaliland waxay ka leedahay arrinta qorshe siyaasadeed oo ballaaran dawladdu waxay fidisay gogol nabadeed waxa noo socda wada hadallo runtii meel wanaagsan qaarkood ay marayaan horena qaar aan ugu najaxnay baa jira oo imika kamid ah hawlaha qaranka u socda kamid ah oo si wanaagsan loo guuleystay kuwa kale noo harsanna waxaanu aad iyo aad ugu rajaweynaa anagoo tubtii dhaqanka iyo wada hadalka iyo wada shaqaynta Somaliland ku caanamashay marayna in dhawaan aanu ku soo guuleysano arrintaas arrin cid kale laga talagelinayo ama cid kale khusaysa maaha waa arrin u khaas ah waxaanu jecelahay dalalka jaarku in ay tixgeliyaan arrintaas inay tahay arrin Somaliland dalkeeda iyo shacabkeeda u gaar ah wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland sidoo kale waxa uu sheegay in go'aamadii ka soo baxay shirkii magaalada London ay haayeen qaar Somaliland cadowgeeda ka nixiyay isagoo ka hadlaya waxa uu yiri horta arrintan waa arrin new development arrin cusub oo ku soo birtay saaxadda siyaasadda ee geeska markii ugu horeysay beesha caalamku waxay si cadaan ah u muujisay in Somaliland iyo Soomaaliya ay kala yihiin laba dawladood oo kala gaar ah oo beesha caalamku ay diyaar u tahay in ay ku taageerto inay ka wada hadlaan mustaqbalkooda siyaasadeed marka horta arrintaasi waa arrin caalamku soo dhaweeyay waxa kaloo baaqa la socday dardaaran iyo fariimo adag oo ka soo baxay beesha caalamka khaasatan dalalka arrimahan imika u soo banbaxay inay wax ka qabtaan oo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo Yurub iyo ay damo badan oo Carabta ka mid yihiin Xamse Ali Bulbul Hon Cable TV magaalada